wararkii lagu qaaday xarunta nuclearka ee dowladda dalka Imaaraadka shalayta galinkii dambe ayaa waraysi lala yeeshay sargaal hore uga tirsanaan jiray sirdoonka arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa farta ku fiiqay meel aan warar kabo aysan hadal haynin. xog ayaan kaaga hayaa iyo video qaybta dambe ee barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa. dhanka kale daawadayaal mas'uul sare u hadlay dowladda dalka Iiraan ayaa sheegay in biyaha Oman haddii aysan si degdeg ah uga bixinin ciidamada dalka Mareykanka isbaarada dhigtay inay halkaas ay noqon doonto waa soo hadalka u dhigaya xawaalihii ciidamada Mareykanka. xaaladdu faraha ayay ka sii baxaysaa. Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka aan iraahdee True Socialka soo dhigay muuqaalka hadda hortiina ka muuqda galinkii dambe xalayto oo fallaaruhu sidaas Iiraan ugu taagan yihiin calanka Mareykankana uu ku huwan yahay. fallaarahanu maxaa lagu macneeyey, khubaradu maxay ka tiri, xog ayaan kaaga hayaa. maxaad kala socotaa dagaalka weyn ee markaas sida xawaaraha ku socda u dhexeeya dowladda dalka Imaaraadka Carabta hogaamiyaheeda Maxamed bin Zayed iyo wiilka dhaxalka boqortooyada Sacuudiga leh ee Maxamed bin Salmaan. hogaamiyaha ama wiilka dhaxalka boqortooyada Sacuudiga leh Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayed ayaa meeshii ugu kharaareed ayay maraysaa. waxaana lagu soo warramayaa Gulf Cooperation Councilka Imaaraadku inuu Sacuudigu qorsheynayo gebi ahaanba inuu ka saaro xilli Maxamed bin Salmaan uu dhisayo xulufo culays iyo miisaan leh oo dhaqaale iyo cudud militariba leh oo Bakistan iyo dowladda dalka Turkigu ay ka mid yihiin oon horey idinkaga soo warranay. xilli Imaaraadka Israa'iil iyo Mareykankuna ay isku sii durkayaan dhinaca saaxiibtinimada, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka intaba ay ka wada shaqaynayaan. haddaba waxaa la leeyahay Maxamed bin Salmaan waxa uu rabaa Gulf Cooperation Councilka inuu Imaaraadka gebi ahaanba uu ka saaro. laakiin waxaaba suurtagal ayay warar kalena leeyihiin Maxamed bin Zayed maadaama uu ka baxay OPEC inuu kana asagu isagaga baxo halkaasna haba yaraatee wax consequences ama cawaaqib xumaa aysan uga imaano asagu uu lugta furo. dhanka kale dowladahan boqortooyada Sacuudigu ay heshiis kala tahay oo ay ka mid tahay dowladda dalka Bakistan ayuu 5 bilyan ee dowladda dalka Imaaraadku ay dib ugaga soo ceshanaysaa siday amar ku bixisay. dhanka kalena wasiirkiisa arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa waxa loo diray dalka Turkiga si markaas Erdogan iyo Hakim Fidan wasiirka arrimaha dibadda loogu qanciyo Imaaraadka cid u bedeli kartaa inaysan jirin dhanka Sacuudigana aysan marinin. xaaladdu waa kharaar tahay laakiin Erdogan waa budo gaar u tuman dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba Sacuudiga iyo waxa uu ku gowracan yahay ayaa la leeyahay dowladda dalka Qatar iyo weliba dowladda nuclearka haysata ee muslimka keliya ah ee Bakistan. waayahay haddaba daawadayaal dhinaca kale waxaynu ognahay sida oo kale madaxweynaha dalka Masar al-Sisi inuu gaaray dalka Imaaraadka oo loo yeeray. xulufadaas aan idiin soo sheegay Sacuudigu uu markaas ugu tuwan yahay dhinaca dhaqaalaha iyo Bakistan iyo xulufada kalena Masar qayb ayay ka tahay oo muuqaalo ayaanu idiin soo gudbinay iyo warar markaas tusaya inay Masar qayb ka tahay. haddaba Masar ayaa loogu yeeray si Sacuudiga iyo Masar loo kala durkiyo. Sisi oo la sheegay nin markaas asagu haba dhinacay ugu badisa ah isla mar ahaantaasna raba inuu meel walbaba khasabad uu ka dhuuqo uu helo ayaan la qiyaasi karaynin ayaa la leeyahay dhinaca uu badanayo. laakiin waqtiga ayaa eryanaya oo inuu dhinac u barto waa ku gowracan yahay. wixii ku soo korra daawadayaal barnaamijyadeena dambe ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda la yidhaahdo. waxaa noo soo socda Larry Johnson iyo wararkii lagu qaaday xarunta nuclearka ee dowladda dalka Imaaraadka. waayahay intaanan haddaba daawadayaal u gudbinin arrimahaas oo dhan waraysigan muuqaalkan haddii aynu isla eegno halkaa warbixintan aan idhaahdee 12 mirir ka hor ayay soo dhacday. dowladda dalka Mareykanka ayaa shiraysa waxaana laga shirayaa dagaalka Iiraan. shalay waxaa khadka telefoon ku wada hadlaysaanu idiin soo gudbinay Netanyahu iyo Trump. maalinta talaadada ee Britain ugu soo foodlana waxaa shiri doona
golaha wasiirada iyo laamaha ammaanka ugu sarreeya iyo Trump qorshihii ugu dambeynta ahaa situation roomka la isla tegayaa dabadeedna halkaas ayaa lagu gorfaynayaa go-aanka la qaato ama dagaal buu noqon ama dib u gurashay noqonaysaa waxba kama dhexeeyaan inta badanna dagaal inuu qarxi doono ayaa la saadaalinayaa Iiraan oo arrintaas aad iyo aad la socota ayaa warbixintan soo saartay muxsin ra'iisi uu sheegay markaas in dowladdiisa horena uu ahaan jiray markaas ilaalada kacaanka ayuu commander ka ahaan jiray ayaa waxa uu sheegay haddii aysan dowladda dalka Maraykanku aysan kala bixinin ciidamadeeda isbaarada ay badda Cumaan ay dhigatay markaas in ay noqon doonto halkaasi xawaalihii dowladda dalka Maraykanka warkan waxaa lagu macneeyay daawadayaal in uu imaaraadku uu ogi imaaraad maahane inay Iiraan ay og tahay in dhabaha loogu soo jiro oo aysan dagaalkana uusan joogsanaynin wadahadalkii waa soo dhammaadeen waxa la isla meeraystaba haatan arrintu waxa ay timid meeshii markaas la filayey inay imaanayso oo ah markaa dagaalku inuu qarxo arrintaas daawadayaal waxaa kaloo hoga tusaalinaysa arrintan halkan hadda idinkaga muuqata Donald Trump ayaa muuqaalkan bartiisa Truth Socialka soo dhigay haddaba khoorada militarigu maxay ku macnaysay laba arrimood ayaa lagu macneeyey waa midda koowaad waxaa la sheegay arrintaanu inay tahay Donald Trump waxa uu karkarinaya situation roomka talaadada waxa ka soo socda inay tahay arrintan oo Iiraan dhinac walba loogaga imaanayo oo haatan Maraykanku uu heli doono and don't quote me on this uu heli doono markaas jihooyin fara badan cid ka soo weerarta oo once for all mar qura laga gudgaara Iiraan ma laga gudgaari karaa khubaradu maxay ka tiri xog baan kaaga hayaa ha iga degdegina halkaa joojiyaha igu hay iyadoo daqsi loo xiiro waayahay haddaba ikhyaarta sharafta iyo karaamadana waxaa arrintaanu inay wadamo fara badan Iiraan ay soo weerari doonaan waxaa la yidhi wadamo fara badan ma ahane arrintaanu cid Trump ku weerisaa ma lahan Israa'iil aan ahayn inta la og yahay laakiin waxa arrintan ula jeeda ayaa la yidhi Donald Trump in dowladda dalka Iiraan ciidamo gudaheeda la geyn doono oo dagaalkii markaas cirka badda iyo dhulkaba uu ka bilaabi doono hal mar qurana ay iswada qabsan doonto Iiraan ayaa sheegtay arrintaas inaysan sugi karinin oo markaas jasiiradaheeda ciidamo haddii la keeno go'doon ay gelayaan go'dan ay ka saarayaan cid u soo gurman kartaana aysan jirinin waase Iiraan iyadu hadalka u dhigtay Abbas Araachi ayaa hore u sheegay ciidamo dhulkeena gudaha u soo gala wuxuu yiri waa sugi la'nahay ninkii wariyaha Maraykanka wareysanayay ayaa u maleeyay inuu boqoli waayay war maxaa tiri uu yiri igu celi waa sugina ayuu yiri waaba sugi la'nahay ayuu yiri waayahay haddaba arrintaanu labada waji ayay leedahay laakiin waxaan rabaa maadaama Trump in muddo aynu ka warramaynay inaan iyaroo kale kugu biiriyo oo waxba ku yeelaynin laga yaabaa waxaanu inay tahay cagajuglayntii iyo bootadii Donald Trump ilaan saqda dhexe markii la gaaro waxbaa ku soo dhacdo waxba iska soo tuuray inay tanu taas oo kale tahay ma laga yaabaa laakiin warkaaga ha qaadanina warka khubarada aragtidaas anigu aan hadda idinla wadaaga ha qaadanina aragtida khubarada militarigu waxay tahay Iiraan waa la weerarayaa warkaas ayaa loo badan yahay ikhyaarta sharafta iyo karaamada lahayd waayahay Larry Johnson weli waa noo soo socdaa waxaa kaloo daawadayaal soo tarayay sidaynu ognahayba in markaas dowladda dalka Ciraaq ay markaas laba saldhig oo military saxaraha ay ka dhisteen ciidamada Israa'iiliyiintu oo Iiraan laga weeraray for the first time locationkoodii ayaa la soo bandhigay sawirkan waxaan kuula wadaagayaa warka Larry Johnson sargaalka sare si ayda hore uga tirsanaan jiray ayay isku dabran yihiin waayahay halkan hadday noo muuqata oo Ciraaq dhinaceedaan hoose oo Kuwait soo xigta ah ayay laba saldhig oo military ka samaysteen mid ka mida 2024 ayay samaysteen oo diyaar garow ay ku jireen oo waxaa loo haystay markaas ciidamo Maraykan oo meesha degan laakiin Israa'iiliyiin dagaalka xuraabinaya logistigii iyo diyaar garowgii iyo weerarada ayaa halkaas laga hagayay ayaa la leeyahay why this is important you ask I'll tell you why here we go
waa kan haddaba daawadayaal Larry Johnson oo arrintan ka warbixiyey in yar ka hor ayaa la waraystay xilliga barnaamijkan waxaana la weydiiyey imaaraadka yaa weeraray xarayto shalay gelinkii dambe yaa weeraray ma Iiraan baa weerartay ma xuutiyiintaa weeraray mise shiicada Ciraaq oo Iiraan ay misigta isaga tolan yihiin ama isku sidkan yihiin ayaa weerarkan soo qaaday oo Iiraan ayaa dhegta ugu dhibcisay oo tiri waana lagu soo socdaaye ismuujiya su-aasha la weydiiyey sidaas ayaa u dhacaysay saddexdaas jiho ila fiiri Iiraan ayaa weerarka geysatay maya Iiraan ma geysan karto westiga laga soo weeraray westigana waxaa ka xiga Sacuudiga iyo waxaa ka xiga xuutiyiinta iyo dhanka Ciraaq ayaa laga soo weeraray waa mid la gartay so waa Yemen xuutiyiinta Sacuudiga iyo waliba Ciraaq saddexdaas meelood mid baa laga soo weeraray oo Iiraan weerar iyadoo ay hor qaada ma doonayso oo dagaal iskuma horseedi karto xilli ardaageeda la kulaalayo anytime weerar kugu dhici karo hadday marka Iiraan tilaabadaas ay qaado iyadoo ay hormarto Donald Trump wuxuu helayaa qiil uu dagaalka ugu wanqalo uu yiraahdo waana la soo weeraray Iran does not want to give that opportunity fursadaas in Iran ay siiso Mareykanka lagama yaabo oo horey markii labada jeer loo weerarayba Iran gacmaha iyadoo isku saaran yihiin ayaa la soo weeraray markaa kadib ayay weerarka qaaday waatay leedahay Iran anagu waxaynu ka jawaabaynaa dagaalka gardarrada ee lagu soo qaaday marka caalamka ayay u garnaqsanaysaa oo taageero ayay ku helaysaa daawadayaal waxa markuu ugu daarin waa kan sii daa dhageyso wuxuu yiraahdaa raalli hada marqanku hadduu ila tegey haye along with all the crazy posts by Trump. Have you considered false flag? I saw that, yeah. I'd love to hear it from you. I haven't had anyone give me that take yet. Well, so the drones came out of potentially right wuxuu yiri dagaalkiyaa soo qaaday ayuu yiri ma saddexaas meelood aanu ka soo hadalnay ayuu ka yimid wuxuu yiri ma ka fakartay false flag arrin la qorsheeyey oo loogu talagalay inay tahay oo la rabo in dagaalka lagu soo bilaabo dabin inay tahay sharqool inay tahay Iran loo mareegayo have you considered that this guy horey wuxuu ahaan jiray CIA intel analysis ayuu ahaan jiray waa khabiir weeye markiiba meeshii laga filinaya meel aan ahayn ayuu la aaday jiha kale ayuu la aaday khibraddiisa aqoontiisa ayaa u sheegaysa waxaas waxa uu yiri yaa false flag samayn kara arrin fake ah arrin false flag ah oo markaas wax weyn oo kale lagu baadigoobayo yaa samayn kara ayuu yiri asagaan u daynaynaa war maxaa tiri either Saudi out of Iraq or out of Yemen. Who constructed a secret base in Iraq that was used in the attack on Iran? Two bases. Yeah. So, found out today it was actually two bases. I think it starts with the letter I. Israel. Yeah, Israel. And why would Israel do that? So if what I've been hearing in terms of Russian-Chinese diplomatic efforts via Pakistan to create this new security architecture in the Gulf means that Saudis and Qataris will be principal ones involved with that. So one way to try to keep them from aligning, if essentially with Iran, is to launch attacks which they are led to believe are from Iran. Well, again, Iran is not. You see, Israel ayuu farta ku fiiqayaa waxaana jeclahay hoosta ka xariiqa ninkaanu fikirkiisi ayuu soo bandhigayaa iyo xogta uu hayo iyo meelaha uu wax ka soo xuraabiyey waxa uu leeyahay Israel ayaa ka dambaysa maadaama laba saldhigoo military halkaas ay ka dhisatay oo haatan ay soo shaac baxday dhinacaasna ay xigto Israel ayaa ka dambaysa in inverted commas ayuu leeyahay and his reasoning Sacuudiga iyo Qatar iyo Iran in la kala fogeeyaa la rabaa sababtaas awgeed ayaa dagaalka loo sameynaya si loo sii kala fogaado waa kan marka la dhageyso going to start this and Iran is not going to start attacking Saudi Arabia and Qatar
and even the UAE right now on its own, because they're waiting. They're keeping their powder dry because they've got the diplomatic initiative. They're not going to surrender that. They don't need to. It's the United States that's posting threatening messages. Iran is always saying, hey, if we're attacked, we're going to retaliate. It's that simple. So I wouldn't rule out that this was an attempt to create the impression that Iran is attacking Saudi Arabia in order to make the Saudis angry with the Iranians. So that okay, sidaas ugu dhigaba ka soo qaadanay tahay oo markaas false flag ay tahay la doonayo markaas in Sacuudiga iyo la iska horkeeno Qatar iyo dowladda dalka Iran oo la yiraahdo waa in soo weerarayeen diyaaradahan saddexda ah maadaama ay westiga ka yimaadeen boqortooyada Sacuudiga ayay soo dulmareen Sacuudigu muxuu uga hortagi waayay maadaama difaac cira oo haysto dhulka uu soo dhigi waayay haddii ayaga loo dan lahaa oo hawadoodiina lagu soo gardarooday Sacuudigu arrintaa ma samaynin Iran kama suurtagal ah ayuu leeyahay oo danteedu kuma jirto hore uga soo hadalnay si kastaba ha ahaato daawadayaal ma cadda ilaa iyo haatan ama war sugan oo la haye ma jirto xaqiiqatan cidda ka dambaysa at this point in time xilliga barnaamijkan aynu duubayno kow cid sheegatay ma jirto wax caddaynoo lasoo bandhigay ma jirto satellite imagery lasoo bandhigay ma jirto meesha ay diyaaradahan ka soo kaceen labana lasoo riday midna markaas generator weyn oo markaa xarunta nuclearka ee dowladda dalka Imaaraadka oo ay muuqato in la weeraray inay bareer cad tahay maxaa yeelay meesha ay ku taalla maabkan hore idinkaga tusay waa meel go'doon ah oo geesa taasaana sababtay markaas in la yidhi halkan waa loo soo qasday dowladda dalka Imaaraadka meel la sara ma laha waxa ay la hadashay Rafael Grossi oo ah ergeyga gaarka ah u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha nuclearka waxayna Imaaraadku sheegeen they have a right to retaliate xaq iyo xuquuq asaasiya waxaynu u leenahay inaynu ka cadgoosano meeshii weerarka noogaga yimid now waxaynu ognahay xuutiyiintu inay hubaysan yihiin oo ay ka awood badan yihiin malishooyinka Ciraaq ee shiicada ah xuutiyiinta hadday noqoto oo ay weeraraan xuutiyiintu ayaguna waa soo weerarayaan Iiraanna weerarka dhinaceeda ayay kaga jirtaa dagaalku hadduu qarxo Imaaraadka laba jah ayaa laga soo weeraraya laakiin Imaaraadka waxaanu kala ognahay Israa'iil inay difaaca cirka ay u keentay oo markaas ayaga laftigoodu ay u diyaar garoobeen arrintan waxaa kaloo jira Imaaraadku inuu haysto dhaqaale ka badan ayaga dhaqaale aad u fara badan oo any hub oo adduunka maanta yaalla ay ku iibsan karaan marka Maraykanka iyo Israa'iil saaxiibo ayay leeyihiin marka halkan waxaa muuqata daawadayaal in la ismaquulinayo oo qolo walba ay rabto inay iyadu markaas baawarka ugu sarreeya ee bariga dhexe ay noqoto Israa'iil waxay rabtaa Iiraan inay meesha ka saarto oo markaas cid cabsi gelisa aysan jiranin Iiraan waxa ay rabtaa inay badbaado oo iyadoo sideedaa soo noqoto dagaalka gardarro ayaa lagu soo qaaday aan taageerana haysanin Sacuudiga iyo Imaaraadka oo xaqiiqatan meesha kubaddu taala waa halkaas labadaa wiil yaa reerka u harayo aan kuugu daray saaxiib Maxamed bin Salmaan oo socodbaradka ma wada ilmuhu markay yar yihiin markaas booskan soo buuxinaya oo soo hana qaadaya oo booska aabihii galaya cidda gacanta qabatay ee gardaarisay ee Maraykanka ku sidigtay waxa weeye Maxamed bin Zaid wuxuuna u arkaa gabar uu dhalay oo caasiyoobay Sacuudiguna wuxuu arkaa nin awood leh bariga dhexe u sarreeya dhaqaale ahaan dowlad aad iyo aad u weyn leh labada guri oo barakaysan ay ku yaalaan asaga in lagu daba tukada ay tahay imaamka iyo hoggaanka dhabtaana uu yahay Imaaraadkana uu ka dad badan yahay ka dhaqaale badan yahay kana dhul badan yahay asaga in lagu daba tukadana uu rabo warar kale oo aan sugnay waxay sheegayaan Imaaraadku inuu isku arko code and code Yurub oo kale inay isku arkaan oo carabtaanba ay iskala wen yihiin laakiin war sugan ma ahan oo markaas sida Yurub inay u dhaqmaan bay rabaan oo Yurub ay wax la qaybsadaan ayagoo dhanna tiradoodu waa 1 milyan 9 milyan oo kalena dunida daafeeda ayay ka yimaadeen credit to them ayagoo 9 milyana saamayntaas ayay leeyihiin dalkoodii development ay ku sameeyeen waa kobciyeen dhaqaalihiisii
ammaankiisii horumarkiisii ayay dhisteen shidaalkoodiina waa ka faa'iidaysteen halista ugu weyn ee wadamada carbeed oo dhan gaar ahaan khaliijka waxa ay tahay meelaha biyaha lagu sifeeyo oo iiraan ay ka duqayso dabadeedna daasad biyaha cabaan heli maayaan dasadkana waa ku nool yihiin warkuu soo gaaray nabadgelyo saaxiibayaal waa mahadsantihiin iiraan oo markii ugu horreysay daawadayaal ku dhawaaqday wixii lagu tuumayey ama laga baqanayay oo ah inay iiraan samaysanayso nuclear bomb ay samaysanayso waxaynu idiin haynaa mas-uul sare oo ka tirsan iiraan oo si bareera u yiri itusoo taabsi xubinta dambe ee barnaamijka ayaa noogu tegaynaa cabsiduna waxa ay tahay la qabo iiraan oo nuclear bomb samaysata bariga dhexe iyo khaliijka ayada ayaa ka talinaysa ayaa leeyahay cid ka garab hadli kartaana ma jirto meesha israa'iil uu sheegay professor john mearsheimer inay ayadi doonayso inay hegemoniga noqoto ama cidda keliya ee markaas ayadu bariga dhexe ka talisa qaybta dambe ee barnaamijkeenan kooban ayaa noogu tegaynaa haddii alla yidhaahdo ee daawada hawdaymala'ani korneelka caanka ee douglas macgregor ayaa dhanka kala sheegay in markaa maraykanka iyo israa'iil la soo gaaray xilligii ay isfuri lahaayeen oo ay kala qaadan lahaayeen markaas kala tegi lahaayeen oo maraykanku sida maanta uu ku jiro uusan ku jiri karinin bulshadii maraykankuna ay toostay ayadana meesheeda ayaynu ugu tegi doonaa waxaan kaloo barnaamijka idinkugu hayaa daawadayaal sirdoonka arrimaha dibadda oo si bareera oo cad uga hor yimid wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka peter hegseth oo yiri iiraan dhulka ayay taallaa sagxadda ayay jiiftaa waxna ma hayso annaga ayaa ku tumanay sirdoonkii ayaa waxa ay sheegeen hormuus biyomareenka hormuus inay kulaalayaan in ka badan 30 ugu yaraan 30 gantaalada ridada dheer ah oo halkaa ku jira iska badaa waxyaalaha kale iyo agabka militariga iiraan ay haysato oo waxa uu peter hegseth sheegayo waxba inaysan ka jirinin ayay sheegayaan isku dhexyaac iyo khalkhal ayaa halkaa ka muuqda ayaa la leeyahay dhaqaalaha ilaa iyo haatan ku baxay dagaalka 11 wiig madaxa la galay ee maraykanka iyo israa'iil ay ku qaadeen dowladda dalka iiraan ayaa la sheegay 29 bilyan inuu kor u dhaafay waxaana la saadaalinayaa wiigaga soo socda iyo bilaha soo socda dagaalkan haddii uu sii daba dheeraado sida la saadaalinayo maraykankuna soo rogaal celiyo in ay lacagtaanu ay aad uga sii badnaan doonto intaan arrintan ayaa aad iyo aad uga caraysiisay bulshada maraykanka xilli markaas xogayihii hore ee agaasimihii hore ee la dagaalanka argagixisada dalka maraykanka joe kent oo wiigagii lasoo dhaafay iscasilay uu sheegay inaysan dowladda dalka iiraan wax halis oo ay ku hayso maraykanka iyo weerar ay kusoo haysaa mid laba uusan jiranin ee arrintan ay tahay mid meel kale laga soo waaliday dadkii maraykanka ah ayaa ka arka noloshoodii ayaa ka arkaan dagaalku saamaynta uu ku yeeshay maciishadii iyo shidaalkii ayaa cirka isku sii shareeray inay kasii dari doonto ayaana muuqata donald trump ayaa arrintan waxa ay ku tahay ayaa laleeyahay wadnaqabad maxaa yeelay waxa uu ballan qaaday inuusan dagaal dambe oo bariga dhexe uusan aadinin so far wuxuu weeraray nigeria iiraan 2 jeer dalka la yihahdo venezuela haatan cuba ayuu u socdaa oo weerar iyo duqayn ayuu ku jiraa marka iyadoo dagaal laga soo horjeeday bariga dhexe ah haddana uu yiri maraykankan first ka dhigayaa waxa muuqata halkan maraykanku inuusan first u ahayn markaas 29 bilyan dadka maraykanka ah dib loogu celin lahaa canshuurtoodii qodobkaas haddii aynu daawadayaal intaa uga baxno waxa uuna keenayaa qodobkan kale oo aad iyo aad xiisaha gaarka u leh qodobkan daawadayaal aad arkaysaan sawirkii hore aan kuugu soo celiya halkan waxaa ka muuqda wasiirka gaashaandhigga iyo weliba taliyaha ciidamada oo labadooduba isgarab fadhiya oo markaas su-aalo la weydiinaya saacadii lasoo dhaafay sawirkaas markay ay halkaa fadhiyeen ayaa waxaa la weydiiyey dowladda dalka maraykanka waxa ay sheegtay in ay aanadaahda sirdoonka arrimaha dibadda maraykanku wuxuu sheegay in hormuus keliya daraasadii u dambeysay ee hadda lasoo sameeyey bilowgii bishan haatan waxaynu ku jirnaa 13 bilowgii bishan waa 2, 5, 6 bishan hadda aynu ku jirno may maanta 13 ah
daraasadii u dambeysay ee sirdoonka arrimaha dibadda maraykanku ay soo sameeyeen waxaa lagu sheegay marinbiyoodka hormuus keliya in ay markaas 30 meelood oo gantaalada iiraan ay ka rido oo diyaarsan oo shaqaynaya oo hubaysan ay yaalaan 33 ayay ahaayeen maraykanka iyo israa'iil intay duqeynaya waxaa muuqata halkan marka la eego hormuus agagaarkeeda 3 keliya inuu dhaawac soo gaaray 30 ay shaqaynayaan. Peter Hegseth waxa uu yidhi waa burburinay waxba ma haystaan, sirdoonkiisii waxay yidhaahdeen warkaa waxba kama jiro. marka ayagu sidaa uma dhigin waxba kama jiro, laakiin qoraalka ayuu ku cad yahay. xogtii aynu soo aruurinay, aynu soo xuuraaminay, aynu inta badan ka shaqaynaynay. 3 wariye ayaa soo diyaarisay xogtan waa arkaysaan. xalay saqdii dhexe ayay soo baxday oo taariikhdu ahayd 12 habeenimo markay maraykanka 5 galabnimo ay u ahayd maraykanka 12 taariikhda ahayd baa loola jeedaa. 3 wariye ayaa soo diyaariyey. 3doodaba qoraalka ay soo saareen oo New York Times ay qorayso in ay Iiraan ay si xalisa u hubaysan tahay, foodana in la daraa aysan saaranin ayay sheegayaan. oo Iiraan ay wixii laga burburiyey ay dib u hagaajisatay, ayna markaa awood u leedahay inay weerar soo qaado maranbiyoodka agtiisana aan laga mari karaynin, isla mar ahaantaasna halis weyn ay gelinaysa. baragraafka labaad meesha u dambaysa haddaad eegtid maraakiibta maraykanka iyo kuwa shidaalka wadaba. waana sababta maraykanku uu u geeyey maraakiibtiisii 500 ilaa iyo 600 oo kilomitir ayay u jiraan Iiraan, hormuus ay u jiraan, maadaama Iiraan gantaaladan ay haysto. Peter Hegseth wuu ogyahay arrintan, laakiin intuu soo hor fariistay guddigii ayuu wuxuu ku yiri Iiraan waxeedii oo dhan waynu burburinay, sirdoonkiisiina waxay yidhaahdeen waxba kama jiraan. marka khalkhal iyo isku dhexyaac ayaa halkaa ka muuqda ayaa la leeyahay. korneelka caanka ee Douglas McGregor haddii aynu u tagno daawadayaal ayaa dhankiisa sheegay isaguna in la soo gaaray xilligii Israa'iil iyo Maraykanku ay kala guuri lahaayeen. kala guurkanu ma ahan diblomaasiyaday kula tegayaan, saaxiibtinimada xiriirka dhexeeya kula tegayaan ma ahan, laakiin Israa'iil in aynu dagaalada bariga dhexe u raacno oo ay sanka oga durnaano, arrintaas waa la soo gabagabeeyey ayuu leeyahay. waxaa la soo gaaray xilligii aynu markaas furi lahayn Israa'iil. oo waxa uu leeyahay waxa uu daba socdaa in context dagaalka Netanyahu ayaa ku qanciyey Donald Trump inuu markaasi degdega kusoo dhammaanayo, oo Donald Trump waa la siray 79 jir weeye. haddii lagu siri karo waxaasoo kale waxaaba la isweydiinayaa miskixiyan ma fadhiyaa qofkaas dagaal intaa la gelinayo. 29 milyanna ay bilow yihiin, aad aragteen. bilyan ma aha. waa kan Colonel Douglas McGregor ka faaloonaya arrintaas. At some point, in order to disengage from this tragedy, we are going to have to divorce the Israelis in some way. And I think Netanyahu is going to hang on as long as he can, but it's going to be necessary. And even the puppets on the Hill, as well as many in the White House, are going to have to back away from Israel. That's coming. And it's also coming because, inflation of the kind that we're witnessing now, Judge, that affects the things that I mentioned: food, feedstocks, fuel, and fertilizer. This kind of thing changes governments routinely in history. When you go all the way back to the French Revolution in 1789. There you go. taariikhda darsi ka barta ayuu leeyahay. wax allaale iyo wixii dowlado lagu bedeli jiray oo dhan ayay arrintaanu leedahay. waxaana la soo gaaray xilligii isbedelka aan iskamin. arrintan ayaa daawadayaal kusoo beegmaysa xilli taageerada Israa'iil loo hayo ay meeshii abid ugu liidatay ay marayso, according to different poll ama daraasooyin kala duwan oo la sameeyey. shacabka reer Falastiin caalamka uu la dhaqanayo taageerada shacabka reer Maraykanka ay Falastiiniyiinta u hayaan meeshii abid ugu sarreysay ay soo gaadhay. Netanyahu ayaa afkiisa ka qirtay in markaa dagaalka internetka iyo public opinionka Israa'iil laga badiyey oo dhinaca kale ay bahashi isku rogtay. waana tii ay gateen markaas nin Israa'iili asalaan ka soo jeeda, laakiin Maraykan uu gatay markaas TikTok oo meelihii ugu badnayd oo markaas fiidiyoyaasha lagu faafinaya. waxba yaana war ku daarin. aragtidiisu waxa ay tahay xilligii digarogashada ayaa la gaaray, aan iskamin.
ama maanta ha dhacdo ama berri ha dhacdo laakiin sidaan maraykanka iyo israa'iil kuma sii ahaanayaan waa in la kala biiramaa ayuu leeyahay waxaynu haatan daawadayaal eegaynaa qodobkeena ugu dambeeya barnaamijkan ee ku saabsan marka iiraan oo ka guurtay meeshii ay joogtay wixii laga baqanayay ama la saadaalinayeyna haatan dhabbihii cagta saartay waxaan rabaa qoraalkan inaad ila eegtaan laakiin